qisadan idin wado haday ahaan jirtay naagtiisa dhibaatay ama dilay ama naag ninkeeda dishay ama dariis ama waxa soo la iskala soo tagay maanta waxa idin wada laba gabdhood oo walaalo ah isku hooyo isku aaba ah laakiin nin dartiisa isku dilaayo okay halkaas waxay kaaga cadaanaysaa ama ay kaaga soo baxaya dumarku ama kula dhalato ama walaashaha dhasho ama adigu adiguba dhal okay mar walba dumarku in uu ilaahay malaha nagu abuuray qayb yar oo xaasidnimo la yiraahdo ama qoori waa la yiraahdo buu ilaahay nagu dhex abuuray malaha saas aniga ii soo baxday qadiyada maanta ingiriiska joogtiin anaad marti ii tihiin soo gala soo dhawaad albaabka waa furiya shaax iyo daangidii kafegiina waa diyaar albaabkana hayga jibinina aayar u soo gala soo kara diyaaradda ingiriiska idinka soo dijira maanta waa ku arkay say caashiq ma bii taqaanid be manaag xunaay manaag wanaagsan manaag dheer manaag gaaban almuhim gabadhii qaacdii ugu horeysay ninka airportka laga keenay aragtaybo way jeclaatay si u daba socotay intaas sheekada soo wadna ay gabadhu 4 caruur ka dhalayso dhani gabadha ninka waa daba socotay way u suuroonay way waa faacdo marka xas fahmay almuhim maadaama waxay u arki jirtay waa say ayadu sheegi doontay nin wanaagsan qurux badan afgaaban gentle ah nadaafad badan anu ma dhiyaa ayada dhahayso qisadu si sheegayso way nami walaaliyaal okay ninkani 2009 markay xaaskiisu gabadhii koowaad ee babyga ugu horeeyay ee u dhashay buu asagana wuxuu bilaabay inuu u soo yaro jilco halka gabadha labaad yani xaaskiisa walaasheed waxaa bilaabatay marka since 2009 markay saami ilmihii koobaadba ay dhashay intii umusha ku jirtay wixii ka dambeeyay qisada intaas aan soo daldalmayo dhan 4 caruur laga dhalayo inuu ninkani laba naagood reer guriga u joogaan xaaskiisa already uu qabo oo meher ugu xiran yahay iyo xaaskiisa walaasheed oo de ayadana dhinaceeda kale uu ka qabo talowse kale wax loo sheega laaniga ay dhibaataysan okay yani waa fahanteen soo ma ninkan wuxuu isku korwatay gabadh iyo walaasheed soo waxay bilaabeen labadooduba maadaama gabadhani sabaax yaraanta gabadha yar markay walaasheed ay shaqada tagto hooyadii aabaha weligoodba dad shaqeey ahayno maalinka dhan banaankay joogaan labada wiilna ay baxaan ayagana ay daneystaan guriga waxay ku soo hari jirtay Soomaa Sabax iyo ilmaha markay guriga ku soo hadaan buu saaxiibkani asagana imaada guriga ilmaha yar taban TV iyo toyska loo daadinaya ayagana qolkii isla aadiyaan kuleed qolkii isla aadaan waxa qolka kule jirnay anaga waxay walaaqeenayeen almuhim guriga marka la wada joogana oo xaaskiisu ay joogto sodoodiisi iyo sodogiisi guriga la wada jooga xataa waxay ku wada hadli jireen text message meeshas waxaaba ka bilowdayba jacayl cusub soo ninkani xaaskiisana uu khiyaamaya family oo dhan uu la noolaa nolosha uu sameeyo Afrika ka keenay maana Pakistan ka keenay soo dhaweeyay gabadhooda siistay abaalka u galay naagtii ilmaha u dhashay ee keentayba uu khiyaamaya okay gabadhaani marka Sabax 23 jir markii gaadhay ayadana family-geeda waxay ku yiraahdeen de soo bodbod manin baa haysataa bis anaga nin ku raadino because waxaa joogtaa sanadkii aad guursan leedahay daxasataan walaasheedna Saima 23 jir markay ahayd bahayd waxaan loo raadiyay Soomaa way xanaaq waxay tiri no aniga heblaaye miihi okay wax barashadeeda dhameynay jaamacadda markaa dhamay ee shaqeeyo in meel isku soo saaro kadib la waay koor ma bay soo qaadi kartaa sheekooyinka noocaas hayla iimaanina hayo way aska aamuseen say sidii u ahayd
oo ninkii naagtii ay sidii isku barakaysanayaan isku faatixaysanayaan oo reerku markuu guriga loo kala faaruqiyo isku wacayaan oo asagna u imaanayo 2014kii baa sabax waxay qaaday uur because waa gabadh waa qof dumar soma uur markay qaaday way u sheegtay saaxiibadeen marka already dream iyo nolol iyo waxaaba imagine garaysatay waa ninkan inuu walaasheed u soo furo oo ayada la noolaanayo because wuxuu aaminsiiyay inuu ayada jecel yahay okay wuxuu ku yiri walaal anigu walaasha ma jeceli adaa ku rabaa Xaliimo soo waxay filaysaa markii inuu ka soo tago oo walaasheed furo oo isla baxsadaan oo nolol sameeysan maadaama uur ay leedahay baby isweeyaan markay kuush u sheegtay inay uur leedahay oo ku yiri maxaa marka iyo filaysaa waxa ku tiri waxa ka filayna aan isla baxsanaanaba fikir noo haya waa isla baxsanaynaa ingiriisku waa weyn qurba joogyaana wax naga qaadi kariyana taaban kar no one walaashayna fur waan isla baxsanaanaa ani adiga ilmihiina nolosheena bilaabanayno ku yiraahdo soo dhow dhigtaada isi horta number wuxuu ku yiri ilma uurkaaga ku jira waana isku suurida waa mid koowaad waa mid labaad walaal anu adiga ku jeceliba هي جعشاي ولا شابا جعلهاي أذيكم جعلين كمنا ربي وإحنا كوما فلايو ناقنينا ننقبين وحلا سماي السنة مربي عنيكو سيكو أمينا حكويري you have no choice أن كإهن المهر إنا سوري ديد هانو كسيحان هانو كتسو توسين one day حتى أما once in your life إنا حاسكي المهي قدي عدي درتالا وقصوتو I'm sorry حليم gabadhii marka qaracankii halkaas ay ka qaaday waxay isku dayday inay sabto waxay isku dayday inay u dejiso markay aragtay inuu ninkan go'aankiisu uusan ka soo tanaasulay dabcan way baxday ilmihii bay iska soo riday waa mid koobaad markay iska soo riday kadib ay u sheegtay waxay ku tiri okay look hadda ilmihii waa iska soo riday hay at least sheekada qarsoodideena ma ku wadan karnaa because anu ku jeclay ma ka maarmeen ku yiri no مربي كسو قاد بينان كو أقوني أما آذني أقوني أما أحبابنا السود أحمرين وحي جعيل إيا بلما إيا ظروفيه نسوا جحجح إيا وحنسوا ولاقنونا قاذي بدا كوريت طبعا ويكو عادك تايني كهادو كزو جعشا حب لهذا ننكي إنا أيضا برصتو أيضا رادستو أيضا واحد تلفونو كقبول بلوكسر mid heer waxay gaar markay inay ku tiraado laba mid ada u door leh ina isdilo ina family-geena u sheego waxa adigu sameeyso dhan ina qalbigeyga jabisay choice-keeda leh could you still please fallen still ku bariya still wuxuu bilaabay markuu arkay gabadhan inay sii waalanayso xaaskiisa marka ilmihii shanaad ayay uurkiisa qaaday because afar aan joogay sama ilmihii shanaad ay uurkiisa qaaday wuxuu yiri طبعا family-gu la hadlay wuxuu yiri waa maasantiin intaas oo sano ba ii soo samirteen yani ani xaaskeyga alxamdulillah lacag fiican baa meel dhiganay waxaan rabnaa ani xaaskeyga inaan guri soo raadsano ama kiro ama iib midkeeda aad lacagteen ay noo goyso inaa idinka guurnaa rabno because ilmihiina way bateen mugtii marka waxay ku yiraahdeen family-gi dabcan waa ra'yigiina anaga waa soo dhaweynayna laakiin in case hadaan noo baahataan ama financial u baahataan ama u baahata xataa gurigiina inaad ku soo laabataan anytime gurigu albaabku waa idin furan gurigu waa gurigiini soo dhawaada sabax markay maqashay dabcan walaasheed cadowtinimo hor leh ayay u qaaday oo waxay aaminsan tahay walaasheed inay ninkan ka qaadanayso so waxay internetka ka raadisay qof u dila dabcan way weyday laakiin google-ka waxay ka heshay sixir dadka wax sixira website-yada hadaan ogeyn ingiriiska dad waxa jira dukaamo ay u furan yihiin hindida bariga aan cusbaaba la sheegi jiray laakiin ma aamini jiray waa arkay dukaamo legal oo dawladdu ay canshuur siiyaan oo furan baa jiro wax lagu sixiro allahumma najina kuwaasi u tagtay waxay ku tiri saan barba qofkaas harba inay sixtaan waxay ku yiraahdeen 5,000 oo baan keen 5,000 oo baan adi waa lacag u dhiganto $7,000 ilaa $8,000 inta u dhaxaysa exchanging marka loo fiiriyo
shantii kun ee baana la sii waxna looma sixrin telefonkana waa laga dansaday waxay bilowday markaa inta aysan ninkan iyo xaaskiisu ama walaasheed iyo seedigeed intaysan guriga ka guurin inay walaasheed ayada gacanteeda ku disho markay ayada disho kadibna saas wada walaashada lenjidka way uga baxaysaa moogtahay ilmihii iyo ninkiiba inay ayada isku qaadato maalmaha kamid ah 23kii April 2016kii ayay familiga tacsiya gashay adii familiga Simon dad u dhow baa qof ka dhintay marka waxay noqotay hooyadii iyo aabihii iyo labadii wiil iyo seedigii inay tacsida tagaan Simon marka ilmihii shanaad bay umul tahay ma tigi karto yani safar hadan waa qof shaqeeya saas ayadoo ay tahay markay reerkii ay baxeen tacsidii aadeen marka waxay ahayd maanta oo kale markay baxeen caawa inay tacsida soo seexdaan bariyo kalena soo laabtaan ay ahayd dabcan Simon markay familigii baxeen ayadana shaqadeedii tagtay gurigii iyo ilmihiina sidii caadi dhaqankeed walaash yarida looga tagay soo waxay samaysay 9kii barkii habeenimo markay ahayd sabax waxay wacday walaashid ka weyn Simon waxay ku tiri ilmaha yar oo babyga ugu yara markaas oo umushay ahayd baa xumad baa haysa please dhaqso imo طبعا sida aad ogtihiin ilmuhu markay yaryar yihiin adu 2 sano intay gaadhin ama 1 sano ilmuhu haday xumada qabato laguma eego because way damage gareyn karta ama way dishaa xumada ilmaha طبعا maadaama ayadana nurse ay tahay Simon isla markiiba way timiday Simon waxay guriga soo gashay leeyahay 10kii iyo 25 daqiiqo oo habeenimo markay saas albaabka uga furtay Simon yani tila qof ilmaheedu oo ordaysa kabiya jaakadii la iska tuurtay kabiya ayadoo xiran ay saas u ag marayso ilaa qofka albaabka markuu saan kaaga furo waa inaad ag martaa mugta Simon saadiya u sii ag maraysay buu mindi 3 jeer ay dhabarka mindi kaga dhufatay walaasheed horeydii u dhacday ee qaylinayso taban xanuunka ee la qaylinayso way ku kor fadhiisatay halkaas ilaa ay halkaas bay mindidii neef camal ugu qashay ayada saasay intaas la kuma eekaysin intay kor fadhiisataba ilaa ay gacanteedu ka daasho mindidii ku celceli dhakhtaradii baaray Simon waxay ka tiriyeen 47 jeer in mindi la gelay gabadhan jirkeeda halkaas waxaad ka dareemi kartaan gabadhan yari walaasheed ka weyn xaasidnimada ay u qabtay طبعا markay Simon aragtay inaysan dhaqaaqaynin inay dhiig baxayso musqushay gashay way qubaysatay dharkii iyo mindidii bacbay ku riday armaajada qolkeeda gadaasheeda ka tuurtay inay yani doqon ee tahay yani jacaylkii rabitaanka ninkan iyo baa hawas ku noqday gabadhan mahane xataa sida yani she has no clue waxay sameynayso maxaa la dhahaa mindi qaad iyo dharkii armaajada gadaasheeda ku tuur because qof markii la dilo guri lagu dilo waa aragtay guriga waxaa loo baaraa qofka meedkiisa laga helay tin agoo laga guray camala loo baaraa almuhim way baxday albaabada ingiriiska badanaa qaarkood waxay yihiin albaabka banaanka marka laga soo galay waa dhalo ama muraayadii banaanka ka jibisay haddana gudaha soo gashay way xirtay isla markiiba 911 ka wacday markii 911 ka waa Mareykanka 999 ayuu wacday oo booliska المهم waxay ku tiri walaashay baan u soo galay waxaan waxay tiri markay laamaha amniga waxay tiri walaashay oo guriga shaqada ku jirtay oo anigu waxay ba guriga downstairs markaan u soo daadagay baan waxaan arkay bay tiri walaashay oo meed ah oo dhiigeedu everywhere uu ku daadaatay markii lagu yiri dhibaatadan u gashay waxay tiri anigu ma ogi sababtoo ah babyga yar ee walaashay umusha ee kula jirtay baan agseexday hadoo xumad maadaama haysa babyga walaashay inta wacay telefoonka markaa ka jarayna aan waaba gam ay tiri markaan hadda soo kaceen isiri walaashaa mar horaabad wacday maxay u iman weydaan hoos u soo daadagay meedkeeda arkay isla markii tabaan laamaha amniga ambulance-kooda ordaya imaaday meedkii baa meesha laga qaaday baaritaankii loo diray walaasheed interviewgii baa ayadana waa ogtihiin ileen qofka ugu horeeya la jooga ama baa interview baa loo ballamiyay gurigii baa marka la baaray gurigii marka la baaray Simon maahane Sabax oo gabadha yar ah marka yaraanta guriga ah qolkeedii armaajada gadaasheeda waxa laga soo saaray dhar iyo mindi
dharkii mindidii waxaa loo diray kuwa baara oo DNA-ga iyo waxyaabahaas baara dabcan waxaa laga soo helay mindida fingerprintigii sabax dhiiga mindida ku yaalana waa DNA-ga waxaa iska lahayd gabadhii la dilay weyneed Saima طبعا markii la weydiiyay reasonka walaasheed u dishay telefonkeeda iyo laptopka guriga yaalana laamaha amnigu way qaateen markay qaateen طبعا message-yadii iyo waxyaabihii ku wada xiriireen odaygeeda way delete gareysay okay laakiin sida aan idin soo sheegay telefonadan aan wadano okay waxa rabtay delete dheh way soo celinayaan laamaha amniga qof markuu qof la dilo gurigaas dhexdeeda waxyaabaha la raadiyo waxa kooka ah telefonada ama iPad ama laptop ama desktop-yada guriga yaala waxa kale oo kamid ah adiga wixii qofkaas lagu dilay Saima message-yadii ninkan iyo ayada dhexmaray dhan way tirtirtay laakiin wala soo celin markii soo celiyay waxay halkaas ka arkeen in gabadha reasonka loo dilay ay tahay gabadha ninkeeda rabtaa طبعا hooyadeedii aabeedii ninkeedii la wacay way imaadeen ninkii asagana qol kale la geeyay interview wuxuu yiri yes xiriir waana dhexmareen intaas oo sano 6 sano almost ayaa xiriir jacayl naga dhaxeeyay laakiin anigu aakhirkii waxaan choose gareeyay buu yiri xaaskayga ilmahayga inaan lose gareeyo ma aan rabin markaan xiriirka u jarayna ayada cadaawad qaaday oo dishimahan anigu dilka xaaskayga لكمله شقنا كمله طبعا ودريمي كتان نحدينتا iyo shooga ay qaadayaan gabadhan labadan waalid hooyadii aabahan ka hadlayaya oo labadoodii gabdhood midna nolol ku waayay midna geeri ku waayay yaa hadal idin ku daalinine October 2017 ayaa maxkamadu bilaabantay oo gabadha Saima maxkamadeedu ay bilaabatay way qarato xatriyas ana dilay wax kale uma dilin jacaylkayga iyo nolosheedii iga qaadatay markaas lagu maxay ka qaadan ma ogeyn walaasha wax ma ogeyn bay inay ka qaadato inay wax ogtahay soo kama horeyso almuhim kama shalaanay tirina dilay xataa soo gabadha maxkamadeedu maadaama wax daliilkii wax walba la hayay December 2017 waxa lagu xukumay 25 sano oo jeel ah okay ninkii xaafis ahaa oo labada gabdhood qalbiyadooda ku ciyaaray ee waxaan oo dhanba sababta u ahaa asaga lamana xukumin lamana maxkamadeenin waxna looma geysan waa la iska sii daayay ilmihii yaryara shantii caruura ayeeyadii awowihii ayaa qaateen asagana ingiriiskan aabi ninkii baan jeeday ayaa la isku haystay ingiriiskan oo geeska jooga qadiyadii maanta intan ayay ku eg tahay qadiyadan maxaa kaaga soo baxay بالحيرة إيجاga qaybta commentiga nagula wadaag intaan ka kulmayno video lamid ah waxaan idinkaga tagayaa fi amaan illah